haba yaraatee wax calaaqaad oo ka dhaxeeyo dabka lagu dhufanayo iyo cudurkan cagaarshowga haba yaraatee ma jirto waay ay Soomaalidu ugu qaateen in lagu raysto dabkan sida hadda aan soo sheegayna calaamooyinka gaar ahaan waa markaan joogno marka indhihii soo cagartaan oo aan dhahnay face-ka si Soomaalida ku baraarugaan ayaa Soomaalidii waxay u qaateen yani indhihii markay cagartaan 2-3 ilaa 4 usbuuc jira wataan dhahnay markii indhihii soo cagartaan kadib ayaa dabkii lagu dhufanaya dabkii markii lagu dhufto maxaa isku soo aadaya dhamaadka caadiga ah wataan 3-4 ilaa 5 tawajiri kartaa oo calaamooyinkii indhihii cagaarkii iyo lablabadii iyo matagii iyo daalkii iyo wixii oo dhan dhamaadkoodii oo ahaa ecteric face-kii oo dhamaanaya oo falgalkii yani dabcan immunity-ga ama difaaca jirka hawshii uu qabtay ah iyo waxa isku soo aadaya dabkii lagu dhuftay dhamaadka calaamooyinka oo qofkii wuxuu galaya marka convalescence face-kii ama face-kii wajigii oo qofka wixii oo dhan ay yaraanayeen ama ay baaba'ayeen oo la dhahay recovery face ama convalescence face-kii waa isku soo dhacaya marka dhamaadka caadiga ahaa calaamooyinka iyo waxa isku soo aadaya dabkii lagu dhuftay Soomaalida marka waxay u qaateen dabkaas lagu dhuftay in uu yahay waxa keenay reesashadii iyo calaamooyinkii baaba'ay reesashada dhahan ayaga mana reesan weli laakiin calaamooyinka baaba'ay recovery face-kii soo ku reeso complete recovery u sameeyo beerkina waxay sii qaadanaysaa 2 bilood taas markii maxay keenaysaa wuxuu ku rees iska daay waxay sii xumeynaysaa cawaaqibta dambe ee cudurka iyo socodkiisa maxaa yeelay qofkii dabkii markii lagu dhuftay isku soo aadin dhamaadka calaamooyinkii iyo dabkii wuxuu u qaadanayaa dabkii inuu ku reestay taas markii maxay keenaysaa waxay keenaysaa inuu qofka nolol maalmeedkiisa iyo orodkiisa iyo shaqooyinkiisa u bilaabo beerkan saan ognahay waxa waaye waa shaybaarka weynaa oo runtii energy-ga jirkeen oo dhan yani lagu kaydinayay oo maaragtay laga qaybinayay marka waxa dhacaya qofkii dhaqaaqa markuu bilaabo yani beerkii oo wali buka oo aan lahayn yani awood wuxuu keenayaa in yani cudurkii replicationkiisii viruskii inuu sii wato oo nasasho la'aantaas iyo orodkaas u galay kadibna burburkii yani difaacii laga awood badiyo burburka oo sii socdo 6 bilood kadib ina mar kale la arkay indhihii oo cagaartay oo aanan ahayn laakiin cudur cusub balse kii jiray oo u bedelmay ama u gudbay muxuu ahayd chronic infection oo hepatitis ka liira chronic hepatitis u gudbay ama midka ragista yeesha oo khatar ah wadadaas markuu mar hadhow ka sheekeen doonaaye oo aadi doono wadadii yani runtii dhibaatada weyn oo qofkii galay hadhow beerka adkaada caloosha biyo galaan